السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa muuqaalkani barbilow noqon doonaa barnaamij ay isku dayayno inaynu ku soo koobno mucda kitaabta ama buugaagta aynu aragno inay waxna tarayaan in uun wax naga bedelayaan hadaynu weelayno waxaynan ku furaynaa taxanaheenan buug cajiib ah oo lagu magacaabo The Compound Effect ama ta'thiir murakkab waxa waxa loo rogay af Carabi. kitaabkan waxa qoray qoraal reer Mareykan ah oo lagu magacaabo Darren Hardy waa nabi ku tajir qoray kitaab kale sida kitaabkan Tarbiyaniyo iyo Living Your Best Year Ever iyo qaar kaleba. The Compound Effect waa buug ka kooban ku dhawaad 195 buug nuskhadiisa asalka ah waana buug xog saaraya in qofkii bilaabay markuu dhameeyo aanu sii ahaan isla qofkii uu ahaa markuu bilaabay akhrintiisa waxaan ka soo qaadanayaa 5 qodob ama 5 point oo aanu arkay muhiim inoo yihiin iyo sidoo kale qaar kamid ah waraa xikmadda ama quoteska kitaabkan xambaarsan yahay ila mariya soo dhawo mar kale kooritaan gudbin barnaamijka waxaan ka codsanayaa dad nagu cusub tahay inaad subscribe saarto kanaalka waayo boqolkiiba dadka muuqaalada daawaday ama soo boqday kanaalka ma hadda uu subscribe saaran yahay soo kale barnaamijkan ku cajab geliyo jecel waxyaabo kale si gaaro like garee qodob koowaad ka soo qaatay kitaabka wuxuu oranayaa hawlaha yaryar ee maalinlaha ahi waxay keenaan natiijooyin waaweyn qodobkan wuxuu qoraagu inoogu sheegayaa in aan guusha lagu gaarin si fudud yacni guusha inaan habeen iyo maalin gudaheed lagu gaarin balse lagu gaarayo guusha in la joogteeyo samaynta ficilo kooban oo cayiman waxba la moodaa inuu leeyahay ama ay tahayba hawlaha yaryar ee sida maalinlaha u qabanayso way isku tagayaan way kulmayaan kadibna waxay isbedel weyn ku sameynayaan ama ku abuurayaan noloshaada muddo kadib markaad wada samaynteed qodobka labaad qaad oo tuurta u rida mas'uuliyadda noloshaada qoraagu wuxuu aad ugu nuxsanayaa qodobkan in guusha iyo guuldarradu ay yihiin wax ka soo baxay go'aanada aad adigu qaadatay haddaba si aad guul u gaadho waxaad u baahan tahay inaad qaado mas'uuliyadda noloshaada yacni in adigu aad mas'uul ka noqoto naftaada iyo sidoo kale waxa ka dhalanaya falalka aad samaynayso si kooban aad u yiraahdo qofna ha ku caanan waxaad falayso qodobka saddexaad la soco dhaqdhaqaaqaaga saynu horumar u gaadhno waxaynu u baahan nahay inaynu la soconno waxaynu qabanayno iyo sidoo kale natiijada ka soo baxaysa waxaynu qabanay qoraagu wuxuu nuga dardaarmaya inaynu samaysano warqad raacin oo ah saynu la soconno dhanka aynu u soconno sidoo kale aynu garanno meelaha aynu ku fiican nahay iyo meelaha dhantaalku inaga jiraba si kale haddaan u idhaahdo naftaada la xisaabtan qodobka afraad ku hareeree naftaada waxyaabaha saamaynta togan leh dadka inaga dhow sida waalidkeen waaladeen saaxiibadeen iyo deegaanka inaga dhowba wuxuu saamayn ku yeelanayaa nafteena taasina been maaha gaar ahaan cid aynu la saaxiibayno sidaas darteed waa muhiim inaynu nafteena ku xeerno saamayn togan oo inaga taageerta gaadhista hadafyadeen haddaba muhiimka waxa weeyaan in hadafyadeenu kala duwan yihiin qof walba hadafkaar uu leeyahay sidaas darteed wax muhiim inaad garato cidda hadafkaaga kaa saacidaysa hadafkaada ordayso iyo waxaad rabto cidda takhasuskeeda yani cidda garanaysa cidda fahmaysa waa in cidda kaaga dhawaata qodobka shanaad sidoo kale ah midka u dambeeya shanta qodob ee ka soo xushay kitaabka The Compound Effect ayaa wuxuu oranayaa qabatin awoodda joogteynta yacni balwad ka dhiga awoodda joogteyntu waa furaha dhabta aad guusha ku gaadhayso qoraagu wuxuu qodobkan inoo sheegayaa inaanay guushu ahayn dhacdo hal mar ah balse ay tahay natiijada ficil la joogtay yacni maaha ku soo boodo waa natiijada ficil la joogtay in muddo ah rasuulku sallallahu markii la weydiiyey ayul amal yahabbu ila Allah wuxuu ku jawaabay yacni amal la qabto midka Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii la weydiiyey waa kii lahaa adwamuhu wa inqalla yacni midka la joogtay haba yaraadee saas daraaddeed joogtayntu waa furaha guusha doorashadu waa bartanka ama satarka dhammaan guulaha iyo guuldarooyinkaba waxaanu dooranayno ayaa abuuraya isbeddelka ugu weyn qof kasta wuxuu haystaa chance uu ku noqonayo mid nasiib leh haddaad ku dhex nooshahay ummad wacyihaan dhisan waxaad tahay nasiib leh talabada u horreysa ee dhanka isbeddelka u qaada waa digniin habka u wanaagsan ee mid feejigan ku noqon kartaana waa inaad garataa ka hor inta aanad samayn isxisaabintu waa dhaqanka kuu suurtagelinaya guul waarta furaha guushu waxa weeye maalin kasta wax ma kororsataa wax cusub ma barataa jawaabtuna waa dhankaaga dad badan waxay focus ka saaraan hadafyada balse ma fuliyaan fadlan ha ka mid noqon kuwaas haddii uu farqi u dhaxeeyo waxaad tidhaahdo iyo waxaad samayso waxaad ogaataa in caadooyinkaagu kaa adag yihiin samir yeelo waayo waqti badan ayaad ku qaadatay ku soo celinta caadooyinka xun dhisidda caadooyin wanaagsanna waxay kaa qaadanaysaa muddo dheer qaacidada ugu dambaysa ee la yaab kale kitaabkan qoray ee idinkaga tegaya waxay tahay hawl yar ood qabato balse aad ku darto joogtayn sidoo kale aad ku darto waqti iyo inaad waqti badan u horto waxay soo saaraysaa
isbeddel aan la malaysan karin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.